gabadhii way laabatay buu yiri maba filaynin buu yiri tan inay dhacayso sakaal biyo wasakh ay ka buuxaan oo daarada guriga dhex yaala ay gabadhii intay soo qaadatay albaabka ay furaysay waxay tiri assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا مالك سود دوقات كجوكتان بجمعة وناكسن قار إذا كذا كم إذا هبين سبتي بأسوق ليس لكن وقت كستو جوكتان بإلهي سبحانه وتعالى هيدين ودواناتشيو إنتاك بعدي وحشر ويل ملها أفر سنة يبربه هذا اللي جوجا مركو قصدا إلى وذاقي وحير ويل كني وحن إسجعلين قبرة إلا سكول كي هوسان وسلا دجانيني إلا هير شام عدد بان وسلا جارني حرير وناكسن وفي عم بان نقد حي wuxuu yiri meel dhexe markay waxbarashadii noo mareysay ayaa gabadhii waxay door biday inay ka guurto magaaladii marka aanu deganayn wuxuu yiri waxbarashadii markay meel dhexe noo mareysay ayaa gabadhii waxay ka guurtay magaaladii aanu wada deganayn taasoo keentay in xiriirkii labadeeda naga dhaxeeyay aanu kala fogaano hase yeeshee markii ay adigu muddo dhowr bilood maqnayd ayaa waxaan arkay yiri gabadhii markaan wacaba inaysan sidii hore ii ahayn hadalkeeda isbedel baa ku yimid qofkuna waa dareemaya marka uu qof isjecel yihiin isla socdaan uu dareemi karaya qofkan isbedel marka uu ku yimid iyo marka uu hore isbedel uusan jirin uu kala garan karaya oo de uurkaaga hoos baad ka dareemaysaa waxay gabadha marka isbedelku uu ku yimid ee aan dareemay dhowr jeer waan weydiiyay waxay ugu tiri waxa ma jiraan waxa ma qaldana laakiin anu waan dareensanaa inay wax qaldan yihiin wuxuu xiriirkaygu sidaa u socdo maalinba maalinta ka dambaysa fakar baa igu sii badanaya waxaan arkaa gabadhii telefoonka haddaan marka qaarkood wacaynaysa naga qaban fariimaha haddaan u diraynaysa marka qaarkood iga soo jawaabin waxaan arkay dhankeeda inay xiriirkii jiitamayso waxaana markan istusay dee maadaama gabadhii ay magaalo kale joogto wiil kale malaha baratay ama qof kale xiriir la socotaa taasoo macquul ah dee marka qofku uu xiriirka kuu gaabiyo meel fognaad kala joogtaan ay suuragal tahay markii dambe wuxuu yiri gabadhiisaan su'aalo u weydiinayba dagaal uun baa kacay oo labadeeda murankayga wuu batay oo maalmo waa iska qabsanayna inta badanna waa caadada ay leeyihiin xiriirku marka uu soo dumi rabo waa caadada uu leeyahay in muran tiro badan uu yimaado oo asbuucii baa waxa dhacaysa in 3 goor la 4 goor iska qabsanaysan wax badan oo macno lahayn bad xataa ku dagaalamaysan xiriirkaas inta badan inuu soo gabagaboobayo wax calaamadaha lagu gartay kamid tahay waxa dhacday wiilkii sidii gabadhii ay de u murmayeen waxbarashadiisu uu isaga watay wuxuu yiri waxbarashadii maalinta ka dambaysa waxaan dareemayaa inaan ka cagjiidayo kalaaskii aan tagi karin wuxuu yiri waxaan bilaabay inaan lacag urursado oo marka lacag yar oo la isiin jiray ayaan waxaan bilaabay inaan urursado si aan bal gabadha tan marka fasaxa la gaaro iskuulada aan inta baxo magaaladii joogto ugu tago oon ku soo arko oo aan de marka si toos u hor istaago xiriirka iyagu wuxuu ahaa buu yiri marka inaanu de meeshaan wiigi 2 jeer ama 3 goor ama ka badan iswici jirnay hadda waxay ku soo ururtay hal mar ama inaan asbuuc dhanba una dhaafo oo aan wada hadlin tani waxay ugu beertay yiri walwal iyo cabsi badan waxay ugu beertay walaac waxaan isiri malaha adduunyada haday gabadha tani ku dhaafto malaha adduunyada ma kuma jiri doonto waxaana dhacday waqtigan aan ku jiray waxbarashadan aan ka daba wareeganay caqabado fara badan oo noloshayda ah oo markaas haystay oo aan oran karo caqabadahaasu waxay ahaayeen kuwo de itusiyay in adduunyada rajo badanba aysan sii lahayn ama aanan mustaqbalkayga aan u jeeday ama ku hanweynaa aanan gaari karaynin wuxuu yiri waqtigii iskuulada fasaxa ayaa la galay maadaama aan fasax ahay hadda waxaan qabanayo badan aysan jirin ayaan waxaan qorshaystay balbax oo gabadhii u tag waan wacay waan u sheegay inaan magaalada u soo socdo waxayba igu tiri buu yiri gabadhii xiriir ani adiga nagama dhaxeeyo halkan baa xiriirkeena ugu dambaysa waxaan ku yiri walaalahay see wuxuu wadaa intan oo sana ayaan isla soconay intan oo sana waqtigeygii baad iga luminaysay waxay igu tiri buu yiri ma isaasan go'aansaday halka fog baad iga joogtaa waxba ha isa soo daalinin walaalow faraha iga qaad xiriirkeenana halkan buu ku dhamaaday anigu wuxuu yiri marka waan yaabanahay waxaan isla intan oo dhan ayaad gabadha soo wada socoteen iskuulkii hoose ilaa jaamacadeed aad waxbarashada isla soo wadeen ilaa ay ka guureysay ilaa ay xataa xagga ka tagtay maxaa isbedelka ku keenay waxaan isri buu yiri bal amaad gabadha wax ka bedeli kartaa maskaxdeeda haddaad si toos u hortagtid oo kala maqnaanshihiino uu keenay gabadhu inay xiriirka kugu goyso wuxuu yiri waan baxay waxaan aaday magaaladii deganayd magaaladii markaan tagay ayaan maalinnimadii goor galabnimadii dambe ayaan ku aaday magaalada hotel baan kireystay alaabtaydii baan soo dhigtay hadiyadaan u soo gaday buu yiri markaa oo aan u soo qaaday iyo waxaan soo gaday buu yiri habeenka wali ma iloobi karayo wiilkani qisadiisa markuu ii soo qoray sidii u qornayd wuxuu yiri markaa waxaan soo gatay ubax guduudan ama flower guduudan ayaan soo iibiyay xataa wuxuu yiri suud qurxoon baan soo gashaday sida ay ka qurux badan tahay ee nin rag uu u labisto ayaan habeenka u soo labistay waan soo baxay xaafadeedii baan imid iridan soo gargaraacay ganjeelka hore ilmo yar baa iga furay waa goor fiid ah
markii wiilkii yar iga furay baan weydiiyey Hiblaaye ma joogtaa ma rabina magaceeda inta ka sheego Hiblaaye ma joogtaa wiilkii yar wuxuu yiri haa way joogtaa kabacdi inankii yar guduhu u cararay gabadhii buu u sheegay wuxuu yiri wiil baa banaanka ku taagan gabadhan marka wuxuu yiri waqtiga kan waxay marka iyadu markii ugu dambeysaan wada hadalnay ugu tiri faraha iga qaad ha isoo wicin ha isoo raadinin kuma aqaano walaalo xiriirkeena bartaan isoo keen dambayso laakiin wuxuu yiri maan dhageysanin oo waxaan yiri gabadha malaha kala fogaanshihiina si waxaad uga bedeli kartid bal baxo u tag gabadhii wuxuu yiri markay soo baxday oo yiridu soo istaagto aniga inaan ahay aragtayba haddii wuxuu yiri canaan iyo qayle igala dul dhacday gabadhii walaalay saamoodaysid maahan bal xataa ma islaamaysid miya aniga adigu sidii inayna wada aqoon xataa maxaad igula dhaqmaysaa gabadhii wuxuu yiri waxaan galay in aan u sheego sidaan u jeclahay inaanan iloobin heerka iga joogto maxaa kugu dhacay bal wuxuun ii sharaxataa way diiday waxay tiri iridan ka noqo meesha ka timidaad haye ubaxan baan bal ku keenay hadiidaan iga qabso mar raba hadiidaada noqo meesha ka timidaad aday ku taala hadiidaada cid kale u gee farahayga qad fadlan hay soo raadin meel aan joogo kuguma arki karo telefoonkaaga waan baloogayaa social mediaga waan baloogaya isma naqaan walaalow gabadhii marka intayna anigu waxaan istaagay iridii baan taaganahay maanan tagin bartaydii baan taagnaa waxaan yiri caaw inta kama dhaqaaqayo ilaa jawaab sax ah aad siisid Hiblaaye waxay igu tiri yiri ma dhaqaaqaysid Soomahan ha wax yar isug gabadhii way laabatay buu yiri maba filaynin buu yiri tan inay dhacayso sakaal biyo wasakh ay ka buuxaan oo daarada guriga dhex yaala ay gabadhii intay soo qaadatay albaabka ay furaysay waxay tiri assalaamu calaykum gab hadda tagaysaa bay tiri wuxuu yiri anoo isnacay oo sida wasakh iigu taalo iyo waxa ur iga baxaya iyo cunto waxa igu daadsan ayaan wuxuu yiri habeenkii dee wadadii magaalada aan lugeeyay ugu dambeyn hotelkaygii baan tagay anoo aad u niyad dilan habeenka maan seexanin dharkii aan watay baan maartay boorsadii baan kala soo baxay dharkii baan bedeshay habeenkii hurdo badan igama soo dhicin subaxii waan soo safray magaaladii kale ee aan deganaa baan haddana safar u soo galan ku soo laabtay wuxuu yiri ayuu magaaladii markaan imid oo aan joogay malaha laba bari dee labada bari cunta igama degayso walwalka qalbi jabka ay haysta ilaah baa wuxuu yiri 29 bari baan isbitaal ku jiray dhaqaatiirtu meel kasta waa iga baareen waxay yiraahdeen ninkan wuxuu qabo ma naqaan wax ilaahay leeyahay oo uu qabo ma jirto hadda ma dhakhtar baa jacayl soo saari kara maya 29 bari buu yiri waa lay dul taagnaa waxa la goormay naftu ka baxaysaa baa la lahaa waan xanuunsanay sariir baan saarnaa ugu dambeyn markuu adigu soo kabtay buu wiilku qisadan ila wadaagay wuxuu yiri ayuba maxaan sameeyaa talansi waxaan ku yiri mid samee qofku markuu sidana kale ku galo waxaa la sameeyaa naftaada lagu mashquulaa naftaada dhis naftaada qof wax qabsan kara noqo hayso arkin inaad liidatid hayso arkin adduunyada dhamay qofkan kaliya inay tahay hayso arkin inaad cid kale waayaysid waad helaysaa qof bini aadantinimadaada fahma kugu jeclaada shakhsiyadda aad tahay kugu qiimeeya maartay wanaagaaga iyo maartay kalsoonidaada iyo qof ku sharfa ma waayaysid adduunku qofkan kuma eka ha iska soo xirin oo adduunyada ha soo gaabinin rajadaada iyo maartay fikirkaagu yuusan soo gaaban wiilka adigu saan u dhiiri gelinaya asbuuc walba waxay noo hayd caado inaan saa wada hadalno ugu dambeyn yaan waridi ku daalin waxaan dhihi karaa waa qisooyinka kaliya aan dhihi karaa way guuleysteen wiilkan ugu dambeyn sidii buu samayn jiray asbuuc walba mar baan wada hadli jirnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu qadaray waxaan ku iri fiiri gabadhaasoo kaama tegin haa dabcan baabuur maad haysan xoolo maad haysan shaqo maad haynin weli waxbarashaa ku jirtay intan horta ka shaqee oo dhis kabacdi markaa xiriir kale ku fakar wiilkan wallahi ma kaftamaye wuu igu soo warceliyey oo beenadiin ma sheegiye wuu igu soo celiyey wuxuu yiri markay dee malaha 2 sano iyo xoogaa ka soo wareegtay wuxuu yiri maanta waxbarashadii waan dhamaystay oo dhakhtarnimo aan bartay wuxuu yiri maanta lacag yar baa meel ii taala baabuur aan leeyahayna waa ku socdaa dumar iyo walwalkoodaba adaa ayuu lagu yiraahdaa wallahi waan la yaabay qof bini aadama oo go'aan uu gaaray marmarka qaarkood xaaladaha ciriirka badan ee ku soo maray ee jacaylka ahi waxay sabab kuugu noqdaan in aad qofka ugu fiican dunidaba aad ku soo baxdo qofnimadaada adiga maaha bini aadamka dunida joogan aad kulli ugu fiican tahay laakiin adigu qofnimadaada meesha ugu sarreysa ugu fiican inaad gaartid bay marmarka qaarkood xaaladaha qalafsan ay sabab kuugu noqdaan run ahaantina waxaan oran karaa qof kasta oo maanta dareemaya ciriirow ama isle waxaan qofkan maartay ku niyad jabiye ama ka tagay ama meel xun kaaga dhaqaaqay waxa dhici karta qofka inaad isqabteen waxa dhici karta qofka inaad xiriir muddo aad u dheer ku jirteen say doonta ha noqoto waxaad ogaataa ilaahay baa horta irsaaqadaada haya laakiin qof markuu ku xumeeyo ama uu ka dhaqaaqo ama uu ka tago meel cidla kaaga tago
waxaa laga shaqeeyaa sidaad u noqon lahayd qofnimadaada darajada ugu sarreysa. naftaada ku mashquul. inta badan dadka noocaasi markay kaa tagaan oo muddo kaa maqnaadaan way soo laabtaan. intay soo laabtaan bay markaa waxay damcaan inay raalli geliyaan oo saxaan wadooyinka ay burburiyeen inay dib u dhisaan, taas ku adkaata. wayna dhacdaa dad fara badan inay ka shallaayaan. sida keliya ee qof kaa tagay uu ku shallayn karo waa qofka ugu fiican ee aad noqon kartid noqo. hadday noqoto xoolo, hadday noqoto magac, hadday noqoto waxbarasho, shakhsiyadaada dhinac walba noloshaada dhis oo meel ka soo bax. haddaad jirdhis samayn kartid siba sida ay ka qurux badan tahay naftaada u ekaysii, hubaal waxaan kuu hubaa qofkaa kaa tegay wuu ka shallayn doonaa inuu kaa tegay. waayo sidii uu kaaga tegay 200 oo jeer si ka sarreysa ayaa tahay. marna himadaada hoos ha u dhigin. dhammaantiin intaynu video kale dib ugu kulmayno, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.